diyaaradii ganacsiga ee ugu horeysay oo samaysa duulimaad aan hakad lahayn oo ka soo duushay dalkaasi Singapore ayaa waxa ay ka degtay magaalada New York iyadoo oo jartay masaafo dhan 15,000 oo kiiloomitir waxayna qaadatay 17 saacadood iyo waliba 52 daqiiqo. shirkadda diyaaradaha Singapore oo dib u bilowday duulimaadkeeda 5 sano kadib ayaa duulimaadyada dhaadheer horey u joojisay iyada oo sheegtay in kharash ahaan ay shirkaddu isbixin weyday. diyaaradda lagu magacaabo SQ-22 waxa ay siday 150 rakaaba iyo waliba 17 shaqaalaha diyaaradda. ninka lagu magacaabo Geoffrey Thomas oo ah tifatiraha guud ee airlineratings.com ayaa waxa uu sheegay in waqtiga uu si degdeg ah ku socday mana moodayn ayuu yiri duulimaad qaatay 17 saacadood iyo wax ka badan waxaana warbaahinta uu u sheegay inuu duulimaadku ahaa mid aad u fudud oo aan adkayn. waxa rakaabka oo dhan isku raaceen ayuu yiri waqtiga sida uu ordayay in rakaabku aanay dareemin duulimaad qaatay saacado badan inuu ahaa. diyaarad rakaab oo tan ka horeysay oo waqtiga ugu dheeraad duushay ayaa waxa ay ahayd diyaaradda ka soo duushay Auckland ilaa iyo Doha oo 17 saacadood hawada ku jirtay. diyaaraddan laga leeyahay shirkadda diyaaradaha ee Singapore oo nooceedu yahay A350 ilaa 900 oo duulimaadkii ugu dheeraa ku tagtay magaalada New York waxay lahayd 2 matoor waxaana nashqadda diyaaraddan loo sameeyay inay bedesho noocii hore ee Boeing 737 iyadoo oo waliba 20% ilaa 30% ay diyaaradda Boeing 737 ka shidaal cun yar tahay. Saciid Axmed Timreyse wararka telefishinka caalamiga ah Star Burco.